daawade haddii ay tahay markii kugu horreysay ee aad soo booqato Ibrahim Honest Official, fadlan subscribe, like, share iyo comment iyo ilaabin gambaleelkana furo. mahadsan. bismillahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. asxaabta kusoo dhawaada casharadii gaarka ee taxanaha ahaa wada sheekaysyada Englishka qaybta intermediate-ka ama qaybta dhexe ee Englishka. qaybtii hore waxay ahayd beginner ahayd, qaybtan waxaa waaye waa qaybta intermediate-ka. muuqaalka wuxuu ku saabsan yahay wada sheekaysi u dhexeeya saddex gabdhood. saddexdaas gabdhood waxay wada qorsheysanayaan inay kulmaan isbuuc dhammaadka si ay u wada aadaan ama filin ay usoo fiirsadaan. wada sheekaysiga waxaa bilaabayso Lowry, gabadha lagu magacaabo Lowry oo bilaabaysa sheekada waxay dhahday soo sidaa darteed, what are your plans? maxay yihiin qorshooyinkiina for this weekend, isbuuc dhammaadkan? Christy oo jawaabaysa waxay dhahday I don't know, ma garanayo. Do you want, adiga ma doonaysaa to get together, inaan wada jir ahaano, or ama something, ama wax kala rabtaa? Sarah oo ah gabadha saddexaad waxay dhahday how about ka warnay dhahday going to see, haddii aan aadno inaan soo fiirsano a movie film, aan ka soo fiirsano Cinemax 26. Lowry waxay dhahday that sounds, dhawaaqaasi wuxuu yahay good idea, fikir wanaagsan. Maybe waxaa laga yaabaa we should go out, inaan u baxno to eat, si aan usoo cunteeno beforehand, ugu horreyntii. Sarah waxay dhahday it's fine with me, taas way ila wanaagsan tahay. Where do you want, xageed rabtaa to meet, inaan ku kulanno? Christy waxay dhahday let us meet, aan ku kulanay dhahday Summer Pizza House, hotelka lagu magacaabo Summer Pizza House. I have not gone, ma aadinay dhahday there, halkaas hotelkaas ama maqaayadaas for a long time, muddo dheer, mar hore igu dambeysay. Lowry waxay dhahday good idea again, taasi waa fikir wanaagsan oo kale. I heard, waxaan maqlay they just came up, inay la yimaadeen with new pizza, cusub inay keeneen, ay soo kordhiyeen. It should be, waa inay ahaataa good, mid wanaagsan, because maxaa yeelay Summer Pizza House, hotelkaas always mar walbo has, wuxuu hayaa the best pizza, pizzada ugu wanaagsan in town, ee magaaladan. Sarah waxay ku tiri when goorme should we meet, aan kulmaynaa? Christy waxay dhahday well, hagaag, the movie filinka is shown, waxaa lasoo bandhigi doonaa ama la fiirsan doonaa 2 pm ilaa iyo 4 inta u dhexayso 4 pm. filinka labaad wuxuu noqonaa 6 pm ilaa iyo 8 pm. Lowry waxay dhahday why, sabab? Don't we go, aanan u aadin to the 2 pm show, filinka ugu horeeyo ee 8 soo galayo? We can meet, waxaan ku kulmi karnaa at Summer Pizza House, hotelkaas at noon, duhurkii. That will give us, taasi waxayna sii doontaa a plenty of time, waqti nagu filan to enjoy, inaan ku raaxaysano our pizza, pizzena, cuntada inaan ku raaxaysano, waqti aan u heli doonaa. Sarah waxay dhahday my cousin, gabadha ina adeerta aan ahayn, Karen lagu magacaabo, is in town, waxay joogtaa magaalada. Can I bring her along, ma keeni karaa, ma isoo raaci kartaa? I hate, waxaan necbahay to leave her, inaan uga soo tago home, guriga alone, keligeeda. Christy waxay ku tiri Karen is in town, Karen magaalada miyay joogtaa? Yes ha, bring her along, Ken soo waday dhahday Lowry, soo wad. You remember, wax xasuusataa Karen, gabadhaas wax xasuusataa? We met, waxaan ku kulannay ha ayada at Sarah's high school graduation party, xafladii qalinjibinta ee Sarah ee dugsiga sare 2 years ago, 2 sano ka hor. Lowry waxay dhahday I don't quite remember, ma yara xasuusto ha ayada. What does she look like, sidee u eg tahay dhahday, tilmaan rabtaa in la siiyo. Sarah waxay dhahday she has, waxay leedahay blonde hair, timo xoogaa yara jaallo ah. She is kind of slender, waa nuuc qof caata ah. And she is about your height, adiga joogaaga oo kalena way leedahay dhirirkeeda. Lowry waxay dhahday she wears, waxay xirataa eyeglasses, ookiyaal ay xirataa. Right, sax miya? Sarah waxay dhahday yes ha, she was playing, waxay ciyaaraysay waqtigaas the piano ciyaaraysay on during the party, intii xafladaas lagu guda jiray, berigaas aan xasuusto. Lowry waxay dhahday I remember her, waxaan xasuustay now, haddaan soo xasuustay. Yes ha, do bring her along Sarah, Sarah ma soo wadi kartaa, masla imaan kartaan? She is such a nice person, waa qof wanaagsan, and funny too, haddana waa qof shactaro badan. Sarah waxay dhahday she will be happy, way ku farxi doontaa to meet both of you again, inay labadiina idinla kulanto mar kale, way ku farxi doontaa. Christy waxay dhahday what is she doing these days, Brian maxay qabanaysay? Sarah waxay dhahday she graduated, waxay qalinjibisay last June, June-tii lasoo dhaafay, and she will start, waxay bilaabi doontaa her teaching career, xirfadeeda barista next week, isbuucan soo socdo. When goortii the new school term, markii termka cusub ee iskuulka beginnings oo bilowdo. Lowry waxay dhahday what grade-kee ama heerkee is she going to teach, ee bari doontaa, heer ilaa intay wax bari doontaa? Sarah waxay dhahday she will teach, waxay wax bari doontaa kindergarten, qaybta barbaarinta carruurta ee wax ka dhigi doontaa.
she loves waxay jeceshahay working with inay la shaqeyso kids caruurta inay la shaqeyso, and she always had iyo jeerna has a good rapport waxay leedahay la dhaqan wanaagsan with them ayaga. Christy waxay dhahday kindergarten ma xarunta barbaarinta caruurta, she must be waa inay ahaataa very patient person qof dulqaad badan. I always mar walbo think waxaan ka fikiraa kindergarten barbaarinta caruurta is the most difficult class waa fasalka ugu adag to teach wax la baro. Most of the kids caruurta intooda badan have never been to school weligood iskool maba teginba, and they have never been away weligooda kama soo tegin from mommy hooyadooda for long muddo weligoodaba hooyadooda kama soo teginba ilma hooyada ay heeso waay. Sarah waxay dhahday I think waxaan u malaynaa Karen will do fine. Karen waxay samayn doontaa si wanaagsan. She knows waxay taqaanaa how to handle sida loola macaamilo young children caruurta yaryarka ah. Lowry waxay dhahday I think waxaan u malaynaa the first few weeks isbuucyadan dhow ee soo socdo will be tough waxay noqon doonaan kuwa kugu adag. However si walba ahaatee once marka the routine hawsha set la dejiyo howlaha markii la dejiyo oo jadwalada la dejiyo it should not be too difficult waa in aysan naqanin mid adag to teach in la baro kindergarten ilmaha galaasyada hoose ama fasalada hoose. Christy waxay dhahday you are right waa saxan tahay the kids caruurta might even look forward horay u socon doonaan to going to school inay iskoolka aadaan since maadaama they have haystaan so many friends saaxiibo fara badan to play with ay la ciyaari karaan. Sarah waxay dhahday there are waxaa jiro so many new things waxyaabo fara badan oo cusub for them ilmahaas yaryar to do ay samaynayaan at school too iskuulka ay ku samayn karaan. They do waxay samaynayaan a lot of crafts howlo fara badan in kindergarten fasalada hoose ee koowaadka ah. I am always mar walba amazed waxaan la yaabaa by the things shayada kindergarten teachers macallimiinta fasalada koowaadka iyo hoose caruurta yaryarka do ay qabtaan. Lowry waxay dhahday yes ha I have seen waxaan arkay my niece gabadh abtigaan u ahay come home markay guriga imaato with so many neat stuff inay guriga la imaanayso qalab fara badan oo hagaagsan. Christy waxay dhahday maybe waxaa laga yaabaa we can ask inaan weydiino Karen to show us inayna tusto some of the things waxyaabo that kuwaasoo we can do aan samayn karno for this Halloween fasaxan Halloweenta marka la gaaro. Lowry waxay dhahday maybe waxaa laga yaabaa we can stop by inaan ku istaagno the craft store xarunta lagu gado qalabyada after the movie markii filimka aan fiirsan kadib. What do you think maxaad u malaynaysaa Sarah? Sarah waxay dhahday I will talk to her waan la hadli doonaa. I think waxaan u malaynaa she will like that inay jeclaa doonto arrintaas. It will help her waxay nagu caawi doontaa with school projects mashruucyada iskuulka when Halloween comes markii dabaaldegan Halloweenta ay imaato. Christy waxay dhahday Michelle's is a good store. Michelle's baqaarka magaciisa lagu magacaabo Michelle is a good store waa baqaar wanaagsan for crafts alaabtaas laga gadanayo. It always mar walbo carries waxa uu qaadaa a variety of things shay kala gedsan oo haya and you can find waxaad ka heli kartaa almost inta badan anything there wax walbo meesha ka heli kartaa. Lowry waxay dhahday there is waxa jiro Michelle's store baqaarka lagu magacaabo Michelle store not far kama fogo away from Cinemax 26 shanamada lagu magacaabo Cinemax kama fogo. I believe waxaan rumaysanahay it's just around the corner inuu dhinacyada ama hareeraha kaga yaalo on Pioneer Avenue wadada lagu magacaabo Pioneer Avenue. We can even xitaa walk over there waan u lugay karnaaba. Sarah waxay dhahday soo darteed we can plan waxaan qorshe karnaa to meet inaan ku kulanno for pizzas inaan ku kulanno at noon duhurkan go to the movies and aadno filimada at 2 sideeda inaan aadno and shop ana kasoo dukaameysano at Michelle's baqaarka lagu magacaabo Michelle afterward intaa ka bacdi right sax soo ma. Lowry and Christy waxay dhaheen yes. waxaan soo gabagabaynaynaa wada sheekaysigii koobnaa. wada sheekaysigan ardayda waxay ka faa'iidi karaan in badan haddii ay isticmaalaan iyo dadka jecel luqadda Englishka waxa ku jira eray fara badan waa luqad fudud waxa lagu qoray luqad fudud waxa loo adeegsan karaa iyadoo loo isticmaalayo qaab wada sheekaysi ah laba qof ay ku sheekaysanayaan. haddii in badan aad ka fahantay muuqaalka like sar si share garay muuqaalkan kan xigo intaan ku kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.